maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa daawadayaal iyo dhegaystayaal warbixin ku saabsan dalka Taiwan ee gebi ahaanba ka go'ay waddanka Shiinaha. Taiwan waa jasiirad yar oo ku taala koonfur bari Asia, waxayna xuduud badeed wadaagaan wadamada Japan, China, North Korea, South Korea iyo weliba Philippines. Jasiiradan waxay hore uga tirsanaan jirtay intii uusan Japan qabsan dagaalkii labaad ee adduunka dhulweynaha Shiinaha. Taiwan waxaad uga gudbi kartaa daraf ilaa daraf adigoo gaari wata. Taiwan waxay ka kooban tahay 5 dal, waxaana caasimad u ah dalka Taipei, iyadoona ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay 4 milyan oo qof. Sanadkii dhulgariirka ka dhaca waxaa lagu qiyaasaa tiro dhan 100 jeer, waxaana lagu xasuustaa kii ku dhuftay sanadii 2009 oo ay ku dhinteen 7,000 oo qof. Waxaa lagu arkaa duufaano iyo bado kala gedisan xilliyada qaar. waxay ku dhawaaqday inay ka go'day dalka Shiinaha sanadii 1994 inkastoo aan weli helin aqoonsi caalami ah. Taiwan tirada dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa 25 milyan oo qof. Jasiiradan waxa ay leedahay lacag iyo baasaboort gooniya, waana dalka 13aad baasaboorkiisu ugu awood weyn, halka qaaradda Aasiya ay ka tahay dalka 8aad ee ugu baasaboorka weyn. Taiwan waxaa aqoonsan 15 dal oo ku yaala adduun weynaha. waa dal warshado iyo wax soo saar aad ugu horumaray.